waxa kamida waxyaabaha aynu ku diyaar garoobayno inaynu ilaahay ugu mahadnaqno subxaanahu wa tacaala hadduu ina gaadhsiiyo bisha ah oo aynaan garanaynin inaynu gaadhiyeen kale wakhtigu wuu kala fadli badan yahay dalkuna waa kala fadli badan yahay dadkuna wuu kala fadli badan yahay fursad qaaliya markuu ilaahay ku siiyo iyo wakhti qaaliya oo cimrigaaga soo gaadhsiiyo waana ilaahay ugu mahadnaqdaa subxaanahu wa tacaala sida wax badan oo adduunyada ah oo muuqda markuu ina siiyo aynu ugu mahadnaqno diinta ka qaalisan dunyada niyadda waxaynu ku haynaynaa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iqtanim khamsan qabla khams xadiidkaa saxiixa nebigu waxa uu ku leeyahay qofka muslimkaa isagoo la hadlaya 5 arrimood oo aad haysato ha garan waayina ka faa'iidayso 5 arrimood intaanay kula kulmin بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى النجم إذا هوى bishaaro macad koolanka imaamu naafic ee barashada qur-aanka kariimka waxa uu waalidiinta iyo cid kasta oo danaynaysa barashada qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka uu ugu bishaaraynayaa inuu macad ku qaadanayo arday cusub isla mar ahaantana hab fudud oo online ah uu kugu bari doono qur-aanka adigoo uu joogo hoygaaga iyo goobtaada shaqo haddii uu culays kaa haystay barashada qur-aanka oo aad waqti u weeday hadda waxaad u helaysaa fursad oo imaamu naafic waxa uu qur-aanka kugu bari doonaa adoo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo duruustoo macadku sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka qiraa'aadka qur-aanka barashada salaada tarbiyadda ubadka culumta shareecada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahin ah ee intaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وحكمتي قالك هاي النبي عليه الصلاة والسلام حكمتها سنبضان باندتك وجهدين كان فايدة سنين كان مرقوضا وقت آني تلقارين بديوان نرش انت ادنوش هاي كفايديس إلا هو فرصده أما هيستقف كي غيريوده markuu sii dhimanaya baan u garanaya qala rabbi irji'un ilaha bi'ali bulay ilaha bi'ali la'alli a'malu salihan fima tarakt bal amalkii aan ka gaabiyay inaan wuxuu soo sameeyo marka nolosha aynaan dareemaynin ee ayaamaheedu soconayaan inaynu ka faa'iideysano oo aynu xisaabtano waxa kaloo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku intuu caafimaadka qabo inuu caafimaadka ka faa'iideysto cudurku waa musiibo waa balaayo wax walba uu dhadhan tiraacdo cunadaada iyo hurdadaada iyo raaxadaada iyo cibaadadaada intaba dhadhanku ka qaadaya diiqad iyo taah iyo daciiftinimo qofku galaya sacaadadii nolosha raaxadeedii baa ka lumaysa waa balaayo marka inta caafimaad qabta caafimaadka ka faa'iideysta buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam وفراغك قبل شغلك انتانad mashquulina gacan madnaantaada iyo jaaniskaaga ka faa'iideyso aan saxmad iyo aanu ku haysanin wax mashquul ah mushkiladuhu kamid yahay mashquulka mar walba fursadda ku soo baxda ha dayicin sheekaha ku qaadanin warwareega ku qaadanin laakiin ku buuxi wax khayr leh dhalinyaradana uu la hadlay nabiga wuxuu leeyahay washabaabaka qabla haramik inta daayarti
waa cimriga intiisa u qaalisan u qiimaha badan waa intuu qofku daayiri marxaladda koritaanka uu ku jiro taana ka faa'iideysa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intaanad gaboobin gabowga laftiisaaba cudurkiya dadkuna waxay ku kala horeeyaan ay ku kala tagaan siday uga faa'iideystaan dhallinyaranimadooda waa qofka soo baxa magac ku yeesha ilaahay agtiisa ummadda agtiisa adduunka aakhiro intaba hadduu dhallinyaranimadiisa ka faa'iideysto waqinaaka qabla faqrik adduunka iskuma hubtide intaanu ku dhaafin ee aanad caydhoobin wuxuu ilaahay ku siiye ka faa'iideysta buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa talooyin waaweyn cidduu ilaahay garansiiyo mar kale nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid xasan oo tirmidi uu warinayo yaa rasuula allaahi ayu nnaasi khayr dadka yaa u fiican u wanaagsan asxaabtu qofka u khayr badan diin ahaan bay doondoonayaan si ayagu kaa u noqdaan nebigu waxau uhi man daala cumruhu waxasuna camalu dee qofka cimrigiisuna dheer iyo camalkiisuna wanaagsan yihin cimri dheer oo wata camal wanaagsan camalka wanaagsanina kaad adigu wanaag u aragta maaha ama ummaddu u aragta waa ka ilaahay wanaag u arko subxaana wa tacaala ee sharcigu wanaag inoogu sheegay ee ilaahay ka farxinaya marka adigoo iska fahmayba qofka dadka ugu shar badan haddana nebiga waa la sii weydiiyo waxa la yidhi fa ayu nnaasi shar dadkan ayaa ugu balaayo badan nebigu markaa wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man daala cumruhu wasa'a camaluh qof cimrigiisii xun yahay cimrigiisii dheer yahay oo camalkiisii xun yahay cimri dheer buu leeyahy laakiin waa camal xun yahay bilaa barako macnaha shaqaduu qabanaya iyo waxa uu qabtuu sameeyaaba macaasiya idan markaa taladaa rasuulkana waynu qaadanaynaa calayhi salaatu wasalaam cimrigu marka uu waxyaabo ku dheeraado waxaa ka mid a qofku inuu ramadaan leylatulqadriga ayaamaha qaaliga inuu ka faa'iidaystaabaa cimrigiisu ku dheeraadaa waqafaadkeenna waxaa ka mid aya waxyaabaha aynu isku baraarujinayno inay niyaddeennu wanaagsanaato yajib ikhlaas anniya niyo wanaagsan oo saafiya inaynu ilaahay la hor nimaadno subxaana wa tacaala taqwada gundhigeedu waa niyadaa wanaagsan dadkuna niyaday ku kala tagaan ilaahay baa wuxu uhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin waxa laga maarmaana inaynaan ka mid noqonin ama ku biirin liiska kuwuu nebigu yidhi jannaday diidaan jannadii ilaahay oo dadku ku wada casuumayn oo loo fidiyey ayay dadka qaarkood ka gacan taagtaana yidhaahdaan jannadaa ma doonayno haddii lala yaabo nebiga la weydiiyeyna wuxuu rasuul ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam man adaacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa qofka rasuulka ilaahay ka tala qaata ka dambeeya ilaahay aqbala jannadii wuu aqbalay kii kale jannadii waa ku gacan saydho wuu diiday kollay tamar baynu bixinaynaa hadalkeenna iyo ficilkeenna iyo fikirkeenna waxa wanaagsan inaynu ku tababarnaynu ku soo jahayno wey wanucawidu anfusanaa calaa dikri illaahi fii kulli xiinin wa calaa kulli xaalin bal jawigeenna inaynu wax ka bedelo ilaahay wuxuu aada ugu farxaa xuskiisa wuxuu og yahay addoonkaasi inuu ilaahay xusuusan yahay kol hadduu xusayo bal markaa wakhti kasta iyo meel kastaba xuska ilaahay aynu ku dayna nafteenna inaynu way diidan tahay oo shaydaan baa u diidane inaynu ku tababarro yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila ilaahay xus fara badan oo xaalad walba sheegaya gelin hore iyo gelin dambe macnaha wakhti walba iyo xaalad walba kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu xusaya wakhti walba xataa haddaanu daahir ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam amaan horta qur-aanka markaad dib u eegto daacaadka ama qeybaha cibaadada layna farayo ereyga kaiiran dikrigu raaciya qur-aanku ereygaa dikran markuu soo arooro kaiiran baa sida badan la socota wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima wuxuu ilaahay u raacinayaa kaiiran culimada waxay leeyihiin waa wax sahlan qofku ilaahay u sahlo wax sahlan oon tacab iyo hawl badan iyo takaaliif badanba uga baahnay weeye dikrigu odhaha keliyaoo carabka uu ka yidhaahdo isagoo shaqaysanaya isagoo soconaya isagoo hawlihiisa wata waxa weeye wax u fudud marka wuu badin karaa
saasaa ilaahay uu leeyahay badiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusay dadku inay tartan ku jiraan wax lagu tartamana xuska ilaahay baa u fiican qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sabaqa almufariduuna qaaluu wama almufariduuna ya rasuula allah qaala addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat dadka qayb waxaa jirta buu nebigu leeyahy dadka ka dheereeyey waana dadka ilaahay aada u xusa kolle waxunbaad xusaysa laakiin xuska ilaahay badi waxyaaba aynu baraarujinayno waxaa ka mida bishani waa bishii qur-aanka intii hore inaynu uga dhowaano inaynu akhrino oo aynu ku dhaqanno oo aynu bishaa aada u dhagaysanno oo aynu baranno oo aynu subcinno in dadka la akhrino qur-aanka siyaabaha loola noolaado noocyada kala duwan intaba inaynu ku dhowaano shahru lqur'aan shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan qaarkood baa salafuna saalix la tilmaamaa 24 saacadood inay mar dhammayn jireen qur-aanka wax lala yaabana maaha qofka ilaahay qalbiga u nuuray carabkiisa iyo qalbigiisa iyo jidhkiisuba uu u fudud yahay waxyiga marka saacado ka mid ah 24 saacadood ayuu ku dhammaynayaa 30 juz adigu bishaad ku qaadanayso nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa la akhri jiray asxaabta isaguna gaar buu ugu cibaadaysan jiray caalamka kore iyo malaa'igta ka timaadana waa la akhri jiray sida malakul jibriil oo kale iqra'u alqur'aana fainahu yaati yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih isagaa inoogu bushaareeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo ergeynayaa imanaya waa kalaamkii ilaahay hadduu ilaahay inooga ergeeyo ergadaa rajadeedu weynti inuu ilaahay inoo aqbalo subxaanahu wa tacaala qofkuna maalinta qiyaamaha wuxuu ugu baahi badan yahay wax isagii ilaahay kala dhex galo ilaahay uga ergeeya famaa lanaa min shaaficiina walaa shadiiqin xamiim waa waxa keliya ay xusuusanayaan gaaladu maalinta inaanay haysanin wax u ergeeya marka siyaamka iyo qur-aankiiba way ergeynayaan maalinta qiyaamaha fursaddan ramadaan dacwaddaynu uga faa'iidaynaynaa dacwadda oo ah diinta ilaah dadka la gaadhsiiyo loo sheego loo gudbiyo intaad adigu waxyiga ku dhaqantay kadib fursad bay tahay waayo dadkii muslimiinta qalbigoodii baa soo jeeda hadday miyi tahay hadday magaalo tahay hadday iclaam tahay hadday gurigaaga tahay waxaad isku dayaysaa inaad dadka wax u sheegto ood wax gaadhsiiso haddaanaad waxba sheegi karayninna waxaad u sahlaysaa dadka wax sheegay qalabkay wax ku sheegeen cajaladaha kutubta wasaa'ilkaa dacwadda qalabkaa lagu baahiyo waad lacag ku bixinaysaa dadka gaadhsiinaysaa indhahooda iyo dhagahooda u soo jeedinaysa si xagga khayr kale aynu dadka ugu jeedinno